بسم الله السلام عليكم رمضان wanaagsan amaalinkan afraad barnaamijka bedel noloshaada shalay waxaan ka soo sheekaysanay saaxiibtinimadii xoog ku saabsan waxaan rajeynayaa xog badan inaad ka heshay oo suuragelinaya in noloshaada wax badan ku soo kordhiso maanta waxaan rabnaa inaan ka wada sheekaysano go'aan qaadashada iyo waxyaabaha ay noloshana ku soo biirinayso sida aan u qaadan karno go'aan wanaagsan sida caadiga ah go'aan qaadashadu waxa uu door weyn ku leeyahay nolosha waa un labo inaad wax ka go'aan qaadato ama inaad wax u go'aan qaadato inaad wax xun ka soo go'aan qaadato oo aad ka soo guurto iyo inaad u soo go'aan qaadato wax wanaagsan oo aad rabto inaad macne iyo wanaag iyo tayo noloshaada ugu soo biiriso marka go'aan qaadashada laga hadlaayo dadku waxay u kala baxaan labo dadna waa dad ku wacan oo ku haboon oo aad ugu firfircoon go'aan qaadashada oo waxa la dhahaa hebel waa qof go'aan adag hebel waa qof go'aankii uu gaaro aanan ka laabanin hebel waa qof noocaya dadka qaarna waxa la hebel go'aan ma laha uu labayn badan yahay waa sida marka macnaheedu kama dhigna qof walba oo noolaa in go'aan qaadashadu uu ku fiican yahay balse dad qaar ayaa aad ugu wacan in go'aan dhaba ay gaaraan halka kuwa qaarna ay weli aysan lahayn xirfad ku filan oo suuragelin karta in go'aan adag ay gaaraan go'aan qaadashadu doorka nolosha ku leedahay waxay tahay number 1 wax walba aad u baahan tahay go'aan la'aan ma suuragelayaan dhiirigeliye caan ayaa waxa uu leeyahay shay kaliya ugu haboon ee isbedel lagu sameyn karo waxay tahay inaad go'aan dhaba aad qaadato go'aan dhaba macnaha haddii aad u baahan tahay isbedel dhaba inaad noloshaada ku soo biiro waa inaad qaadataa go'aan adag oo miro dhal ah go'aanka aad qaadatay wuxuu door weyn ku soo biirinayaa noloshaada waxa ka go'aan qaadanaysaa in meesha shalay aad ku nooleed aad ku noolaato xaaladda shalay aad ku jirto saaxiibada shalay aad lahayd aad weli sii lahaato dhaqamadii xumaa ee aad shalay lahayd aad weli sii lahayd intaas oo dhan aad ka go'aan qaadanaysaa waxaad soo go'aan qaadanaysaa in nolol cusub aad abuurato dhaqan cusub saaxiibo cusub deegaan cusub xiriir cusub wax cusub inaad abuurato marka go'aan qaadashadu doorkaas ayay noloshaada ku leedahay haddaad rabto isbedel dhaba inaad samayso waa inaad go'aan dhaba qaadan karto go'aan qaadashada marka aan gelayo maxaan u baahanaa kaliya waxa u baahan tahay waxay tahay talaabooyinkan soo socda inaad raacdo talaabada ugu horeysa waxay tahay in aad baarto waxa u baahan tahay tusaale hadda waxaan u baahanahay inaan isbedel nololeed aad sameeyo inaan iska bedelo xaalad aan ku jiro number 1 waxa laga rabaa waxay tahay inaad baarto horta maxaan aniga iska bedelayaa waxa iska bedelaysaa raaxo badan inaad sheegto tiga iska bedelaysid ilaa iyo 3 wax xumaan ah oo aad iskaga bedelaysid inaad sheegato markaad sheegto 3 xumaanta aad iskaga bedelaysid waa inaad dan isweydiisaa maxaan iskaga bedelayaa oo maxaan bedel ah oo haddii waxaas iska dhaafayo maxaan u bedelanayaa shaygan wanaagsan aad u bedelanaysid isaga inaad qorto reasonka aad raaciso then marka intaad samayso oo aad baarto waxaad iska bedelayso iyo waxaad u bedelanayso talaabada labaad aad galayso waxay tahay in aad qorsheyso waxaan tusaale waxa iska bedelay dhaqan xun waxa u bedelay dhaqan wanaagsan dhaqankan wanaagsan haddii aanan u samaynin qorsheyn aan nolosheeda qayb uga dhigayo waxay keenaysaa culays badan inaad dareemo inaan hadallada dadka ii soo dirayaan aan aad u dhageysto inay nolosheeda saameyso hadal walbo la dhaho dadku oo waxaad istusaysaa dadka waxaan aan sameynayso daacadka maaha ereyadaas oo dhan inay noloshaada saameeyaan laakiin haddaa qorsheyso every day dhaqankan talaabadaas u qaaday haddaad dhahdo oo go'aan ahaan u gaarto noloshaada go'aankeedu waxay noqonaysaa mid aad adiga gacanta ku hayso qof walba wuxuu sheegay ma dhageysanaysid waxaad dhageysanaysaa nafsadaada fariinta ku soo gudbiso marka number 2 waa inaad plan garaysaa maxaa maalintii sameynaya maxaa weekii sameynaya si dhaqankan uu hirgalo maxaan bishii sameynaya si dhaqankan uu hirgalo maxaa iga jari kara caadadaas iyadan inaad qorsheyso marka qorsheyso waxa saddexaad loo baahan waxay tahay in go'aankii aad gaarto go'aanku waxa la dhahaa waa wax go'ay oo aan laga hadli karin waa laba xaraf aad dareemi karto go'aan wax go'ay oo aan laga hadli karin waa marka adiga bisa iska leh doorashada oo waxaan cid kale inay hadal ku darsato ma ahan marka go'aanka aad gaarto waxa ugu dambeeya laga rabo waxay tahay tala saarasho rabbi waa tuu ilaahay quraankiisa ku dhahay fa idha azamt fatawakkal ala allah go'aan gaara oo alla tala saarta marka go'aanka haddii aad soo marsiiso number 1 in hay'ad aad baarto number 2 aad qorsheyso number 3 say fulintii gasho oo go'aankii aad gaarto aad la tala saarato haddii inta aad la timaado go'aankaagu wuxuu noqonayaa mid hirgala marka go'aanka wuxuu u kala baxaa markii la joogo go'aan qaadashadu labo midna wuxuu u baahan yahay ku dhac midna wuxuu u baahan yahay in aad u diyaar garowdo fulin badan aan gasho tusaale subaxda markii aad soo toosto cadaysashada aad cadaysanaysid uma baahno fikir badan iyo juhdi badan qabiiska aad qabiisanayso uma baahna fikir badan iyo juhdi badan kaliya waxay u baahan tahay inaad ku dhac samayso
xaaladaha qaarna waa mid noocaaya markaad fikirto aad go'aansato inaad waxaas aad samayso waxay u baahan yihiin inaad ku dhac samayso inaad ficil samayso kuwa qaarna waxay u baahan yihiin inaad ka fikirto sida guurka waxbarashada iyo wixii la mid ah marka waa inaad ogaataa go'aankaaga waa nooc mid ku dhac u baahan miya mise waa mid u baahan inaad ka fikirto go'aan qaadashadu waa labadaas nooc oo waa mid u baahan ku dhac iyo mid aan u baahnayn ku dhac balse u baahan in laga fikiro laga fiirsado aad loo fiiriyo xog badan loo helo inta ay ku soo gabagabeynayna maanta barnaamijka bedel noloshaada aan ugu hadlayno go'aan qaadashada waxaan rajaynayaa xog badan inaad heshay bedeli doonto noloshaada haddii ay jirto taliye fariin aad u baahan tahay inaad la soo wadaagto waxaad la soo wadaagi kartaa gmail-ka shaashada kaaga muuqda mahadsanidin ramadaan wanaagsan anigu waa Cabdi Fataax Qaasim Cali